maalinkii toddobaad ayuu galay dagaalkii u dhaxeeyay jamaahiirta xaqudirirka ah ee SSC iyo hooyada dhadiga ah ee dhashay shabaab. waxaan kaloo barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa jabkii iyo khasaarihii weynaa ay maanta dagaalkaasi kala kulmeen jabhadda SNM. waxaan kaloo barnaamijka ku soo qaadan doonaa wariye bidhaanshe oo aad ku taqaaneen kaamira iyo qalin oo maanta kaamiradii qalinkiiba intuu dhigay nin sarkaal ah oo xaq u dirir ah wareysi aanu la yeelanay. magacaygu waa Hilaacsool, channelkuna waa isla Hilaacsool. waxaan idiin soo gudbiyaa warar sugan isla markaana xaqiiqda ku qotoma. waxaan baaraa siraha qarsoon. fadlan si aad noola socoto channelka subscribe dhaho isla markaana gambaleelka u furo. ugu horeyn aan ku horeeyo wariye bidhaanshe waxaad nooga warbixisaa saaka xilliga uu dagaalku bilowday. saaka hiirti waa beri 3:45 markii ahayd ayay ciidamada maamulka Somaliland weerar xoogan soo qaadeen ciidamada deegaanka oo xaq u dirir oo maalintii toddobaad deegaankooda iyo sharaftooda iyo ciddigooda difaacaya iska caabin ku sameeyeen. xabadii saaka bilaabatay 4:30 barkii goordhaweyn oo ay koodii ku dhaweyn iyo 40 ay xabadaasi joogsantay. waa furin uno labada dhinacba waa la diyaarsan yahay oo anaguna difaacaan ku jirnaa iska caabina iyaguna mar walba weerar bay soo qaadeen. wariye bidhaanshe waxaan kaloo ku weydiinayaa yaa weerarkan soo qaaday ma jamaahiirta ayaa weerarkan qaada mise hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab ayaa weerarkan soo qaada? anagu mar walba 7 casho baan nagu difaac baan nahay cidna weerar kuma nihin. mar walba iyaga weerarka xaggooda ku imaanaya mar walba iyagu xagga weerarkooda ka imaanaya iyaga ku jabaya oo deegaano horle iyo goobo horle laga sii qabsanaya. marka 7 casho la soo dhaafay oo maanta 7 ku ahayd marka maanta laga reebo 6 casho ee dagaalku socdayba khasaarooduna waa badnaa. goobaha aanu kala wareegnayna waa cadeymahoodina waa daawateen oo waad aragteen. goobo badan baanu kala wareegnay. goobo badan iyagu muhiim u ahaa istaraatiiji ay ka dagaalamayeen magaalada ka duqeynayeenna goobtii ugu weyneed ugu muhiimsaneed baan ka qabsanay. hal goob unbay magaalada kasoo duqeynayaan. tamar kale oo ah inay magaalada duqeeyaan oo ay beegsadaan goobaha isbitaalada iyo sidoo kale goobaha ganacsiga iyo sidoo kale goobaha bulshadu ku badan tahay oo unbay adeegsanayaan oo ay ogayaal waaweyn iyo qoryaal waaweyn la dhacayaan. mar walba oo dhibaaxa lagu dhufto oo la cadaadiyo oo goobo lagala wareego waxay iyaguna soo canaanayaan magaalada hobiyaal la dhacayaan. tamar kale oo intaas ah ma hayaan. wariye bidhaanshe waxaan kaloo ku weydiinayaa maxaa loo oran karaa ama loo sababeyn karaa sababta hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab ay u duqeynayso magaalada Laascaanood? maxaa lagu sababeyn karaa arrinkaa? dad isku sheegayay dowlad iyo maamul oo le 30 sano jirsanay oo dhalinyaro oo arday wax baratay oo sharaftoodii cigdigooda difaacaya oo qoryalo waxaan ku dagaalamay in qoryal waaweyn adeegsadaan waxaa dhihi karaa waa tamayari weeye waa awood yari weeye waa naflacaari weeye waa dad dhan oo lahaa 30 sano jirnaa xoogobay weeye. marka annaguna inta meedi naga hadayo annaguna shacabta inta difaaci karayno oo dagaalami karayno waan dagaalami. walaalow horta dee maalmihii ugu horeysay goobo istaraatiiji oo iyagu ay deganaayeen oo toga dudurka dhinaciisa oo ciidan badan loo deganaa. xeradaasi wuxuu ahaa xeradii koowaad iyo maalintii koowaad oo aanu ka qabsanno annagoo dhalinyaro yar oo koobana 60 ilaa 70 gaariya. alxamdulilah waa ka guulaysanay. muuqaalkeeda waa daawateen. maalmihii dambana meel kale oo iyaguna ay ku dagaalamayeen oo meeshii aan ka durugsanayn ayaan kala wareegnay. maalintii afraad shanaad goobo isku xixigo oo meel daramada la dhaho oo dambe oo ay magaalada kasoo duqeynayeen 5 iyo 10 hadba baan iyaguna kala wareegnay. hotel xamdi oo iyaguna dhufayska ugu xidhnaa iyo guriga gobolkana iyadana waa lagala wareegay. goobahaasi goobihii ugu muhiimsan ay ka dagaalamayeen baa ahaayeen. waana meelaha hadda ka hagsan lahayiin magaalada ay kasoo duqeynayaan ay ka yani uga jamri lahayiin inay magaalada kasoo duqeeyaan. marka goobaha istaraatiijiga waa kala wareegnay. gacantayda ayuu ku jira. alxamdulilah rabbilcaalamiin. inta dhul Somaliland joogto dadka deegaankuna
joojin maayaan xabadda joojin maayaan intay dagaalami kareen oo dagaalamayaan kaasi wuxuu ahaa wariye bidhaanshe oo ku taqaaneen qalin iyo kaamaro balse maanta ka mid ah saraakiisha jamaahiirta SSC waxaan xaqiiqa awoodii ay lahaayeen ama ay ku xisaabtamayeen ama ay ku tashanayeen ama ay caalamka indhaha tusayeen inay leeyihiin dawlad madax banaanaan karta oo awood iyo quwad iyo ciidan isku filan leh in ay maanta wiiqday oo wax uga dambeeya haba yaraatay aysan jirin waxaan kaloo fashilin doonaa isla barnaamijka ku xiga hubabka magaalada Laascaanood lagu duqeynayo cidda keenta iyo hubka cidda Somaliland u soo dhiibta waxaanu dib ugu falanqeyn doonaa barnaamijka xiga hadduu Allah awood la idmo waa ilaa sool oo idin leh sida iyo